markaaynu ka fakarno ama aynu maskaxdeena ay ku soo dhacdo magaalooyinkii qadiimiga ahaa ama ilbaxnimada waxaynu u qaadanaa oo kaliya wadamada dhaca Mediterranean-ka laakiin waxaa jira 6 magaalo oo kale magaaladan waxay dhacdaa xeebta bariga Afrika waqtigan casrigaana waxaa loo yaqaanaa Xiis oo ku taala gobolka Sanaag magaaladan waxay u xilsaarnayd iibinta badeecadaha xawaashka iyagoo u gudbin jiray wadamada reer galbeedka dadka degan magaaladani waxay badeecadahan ay ka gadi jireen Roomaanka iyo Greek waqtigaasi Greek iyo Roomaanka waxay rumaysnaayeen ama ay u haysteen inay xawaashiyadani ay ka baxaan dhulka Soomaalida laakiin waxaa laga keeni jiray koonfurta wadanka Hindiya dhulka loo yaqaano Tamil Nadu. Due to its rarity, the Somali city-states were able to grow extremely rich by reselling it for inflated prices. magaalooyinka Soomaalida iyo dadka Soomaalidu waxay noqdeen kuwo qani ah oo macaash badan ka sameeya badeecadahani xawaashka ah maadaama badeecadahani ay ahaayeen kuwa adduunka ku yar oo naadir ah except for its abundance of incense and shrewd merchants. After 2 or 3 days sail, 3 maalmood oo safar dhanka badda ah waxa la soo gaaray magaalada muhiimka ah ee Mundus ee maanta loo yaqaan magaalada Xiis ee ku taala xeebta gobolka Sanaag. This species was so rare and of such quality that whenever the ancient Romans acquired this maanta in badan lama yaqaan magaaladan marka laga reebo raadadkii ay ka tagtay ee u dugayay inay ahayd xudun ama marin ganacsi mooyaane. We reached the Emporium of Opane, which is located on the Hathen Peninsula. Mundus waa xudunta ay Roomaanka iyo Greek ay ka qaadanayeen badeecadahan waana meesha ay safarka 3 maalmood u galayeen due to its strategic location. These cities were located on the coast of the Horn of Africa, or modern-day Somalia, and were responsible for the reselling of Indian spices to the West.